muxuu yahay ajandaha la isla sameynayo xasan waxay ahayd in uu ku dhawaaqo laba qodob ama in uu ka laabto dastuurkii uu ansixiyey 30kii bishii 3aad 2024 sidoo kalena la soo celiyo dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 1dii bishii 8aad 2000 iyo sidoo kale 12 xildhibaano ayaa durba diidmo ka muujiyay golaha mustaqbalka Soomaaliyeedna go'aan cad weli lagama hayo su'aalo badan ayaa dul hoganaya warqadii ka soo baxday xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dani iyo Axmed Madoobe miyay imaan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo ay ka qayb gali doonaan shirkan qodobadaas iyo warar kale ayaan halkan ku eegi doonaa saaxiibayaal oo waliba falanqeyno la xiriira arintan shaki weyn oo ka jira warqadan iyo sidoo kale shirki Berito lagu balansanaa ee golaha mustaqbalka ay soo saareen oo guud ahaanba dawladda Soomaaliya ay diiday sidoo kalena ku dhawaaqday shir kale oo waliba 1 bisha Febraayo ee sanadkan aynu ku gudi jirno la soo saaray ama warqad markaasi ku taariikhaysan ay ka soo saartay wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markay kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladan aragtiina nagu wadaagtaan mar kalena nagu soo biirtaan saaxiibayaal aynu ku bilowno xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa si degdeg ah waxa uu uga jawaabay sidoo kalena uga falceliyay warqadii ka soo baxday xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu qoraal kooban ku daabacay bartiisa gaarka ah ee Facebook isaga oo ka faallooday war-saxaafadeedkaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa magacyaalka ah dhankoodu ama dhagtoodu iyo afkoodu isma maqlaan miya ajandaha la isla sameynayo muxuu yahay laba qodob ayaa laga sugayay madaxweynaha labadii sano ee la soo dhaafay waa in laga noqdaa 4 cutub ee dastuurka laga bedelay 30kii bishii 3aad 2024 laguna noqdaa dastuurkii la isku raacsanaa ee la ansixiyay 1dii bishii 8aad 2022 waa in doorashada habka loo qaban lahaa laga heshiiyo ayna ku dhacdaa waqtigeeda guddiga doorashada oo gacanta ama gacan ku sameeyska ahna la kala diraa madaxweyne ummadda waqtiga ha ka qaadin ee dariiqa runta ah ku soo laabo dalkana bohol ha ku ridin ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya haddaba warqadan ka soo baxday xukuumadda Soomaaliya maxaa xilligan su'aalaha ugu waaweyn ee dul hoganaya ay yihiin aynu eegno dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay la yeelanayso shir ay ajandihiisu ilaa iyo hadda sir rasmi ah aanan loo shaacin laakiin warqadda xukuumadda lagu sheegay in ajandaha shirka uu yahay xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirka dalka iyo dimuqraadiyadda iyada oo shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay kana qayb galayaan ama niraade kana qayb galayaan madaxda Jubbaland Puntland iyo guud ahaanba golaha samata bixinta Soomaaliyeed oo marka la jamciyo la isugu yiraahdo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed haddaba su'aalaha taagan maxay yihiin Axmed Madoobe ma imaan doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ay u aqoonsan tahay wali dambiile warqadii ay u jirtay ee soo qabashada ahaa ee waaranka ahaana ilaa iyo hadda meel looga laabtay aysan jirin sidoo kale isla Kismaayo warqad kale waaran looga soo jaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo intaasi oo dhan ay dhaceen waxa haddana Kismaayo ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya labada madaxtooyo ee Villa Soomaaliya iyo sidoo kale Villa Kismaayo labadoodaba si rasmi ah uma aysan sheegin warqadihii la isu diray oo la kala laabtay iyo meel lagu kala laabtay intaba sidoo kale waxa carqalad xoogan ama caqabad xoogan ay ku tahay arintan imaanshaha Axmed Madoobe ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qodobka labaad ajandaha la shaaciyay ma waafaqsana filashada golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo doonayay in diiradda lagu saaro shirkan ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka in ay ku qanacsan yihiin uma muuqato waxaase la filayaa in saacadaha soo aadan ay si rasmi ah u soo saaraan bayaan ay kaga hadlayaan arintan kuna diidayaan ama xitaa ku ayidayaan maadaama xilligii loo madlay shirkan oo ahaa 20 bishan Janaayo meesha ay ka baxeen oo guud ahaanba dib u dhac uu ku yimid oo muddo 5 iyo 10 maalin dib u dhacay shirkan sidoo kale
ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhawaan magaalada Laascaanood ee dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya waxa uu kaga dhawaaqay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ka mid yihiin madaxweynayaasha dalka ka jira inkastoo ra-iisul wasaaraha uu sheegay in Axmed Madoobe uusan u aqoonsanayn madaxweyne laakiin Dani uu wali madaxweyne yahay waxa uu u tagay waayay Laascaanoodna ay tahay waxa saaxiibadiis ay garteen in uu isagu garan waayay qodobka afraad meeqaamkii laga filayay in lagu soo dhaweeyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeedna kama aysan helin filashada golaha mustaqbalka Soomaaliyeedna ma aysan ahayn haddana ogow waxa guddi xukuumaddu ay u saartay hogaamiye looga dhigay wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo in badan oo kamid ah warbaahinta si toos ah uga weeraray mucaaradka dalka oo ay ku jiraan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed guud ahaantoodba waxaana xilligan la warinayaa in warqadan iyo dadka loo magacaabay ama loo xilsaaray qabanqaabada gubashan dhacaysa 1 Febraayo inaysan ahayn wax iswaafaqsan waxa muuqata in dhinacyadan guud ahaantoodba ay ka biyadiidi doonaan waa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kadib shir habeennimadii xalay ilaa saacadihii la soo dhaafay ku dhaxmarayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si degdeg ah waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay garab fadhiyaan xubnaha golaha samata bixinta oo ku wada sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo lagu daray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inkastoo Axmed Madoobe uu ku sugan yahay haddana madaxweynaha Puntland la sheegayo inuu ku maqan yahay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo xiisad adag ay kala dhaxayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya arintan lama oga halka ay ku dambeyn doonto filashada golaha samata bixintana ilaa iyo hadda lama oga waxa ka imaan doona laakiin warqadan iyo habka ay ku soo baxday iyo xukuumadda soo saartay oo la sheegayo inay qayb ka tahay ama gogashan fidinteedu ay koob ka tahayba aysan ahayn wax golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ee markaasi ay ka rajeynayeen Villa Soomaaliya taasi bedelkeed waxa horay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu dhawaaqay in Villa Soomaaliya ay diyaar u tahay qabashada shirka ay soo saareen ama warsaxaafadeedkii ay Kismaayo ka soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed gaar ahaan qodobka 6 oo ahaa in 20 Janaayo oo bishan ah la qabto shir wada tashi oo la isugu yimaado kana qayb galaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed guud ahaan iyo sidoo kale Villa Soomaaliya gaar ahaan kuwa muxaafadka ah oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed lama oga laakiin waxa jira mucaarad kale oo gudaha dalka ku sugan sida madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo agaasimiye hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isagana xisbi gaar ah ee ka tirsan qaybtoodna aanan ka tirsanayn golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale golaha samata bixinta Soomaaliyeedba iyagana caqabad ayay ku noqon doontaa ka qaybgalka shirkan iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay shirkan ka dhigto mid furan kana qaybgali karaan cid kasta ama siyaasi kasta oo Soomaaliyeed oo markaasi talo ku yeelanaya arrimaha masiiriga ah ee dalka Axmed Madoobe ayaa dhawaan Kismaayo waxa uu ka sheegay in 20 Janaayo hadii la gaaro xukuumaddu ama dowladda dhexe ay qaban weyso shirkan aan lagala tashan doonin sidoo kalena bilaabi doonaan soo xulis xildhibaano dowlad kale oo cusub ka barbar dhisi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laakiin hadda gogashu waa lagu dhawaaqay Muqdisho ayay ka dhacaysaa Puntland iyo Jubbaland lama oga sida ay u wajihi doonaan ama sida ay u imaan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo waranadii la isku jaray ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya wali aanan soo laabasho la sameyn haddana wixii ka soo kordhay saaxiibayaal barnaamijyadeen wararkana dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee xogaha seela haddii aad ila dhamaadkana la soo gaartayna waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladan aragtiyo nagu wadaagtaan